السلام عليكم أصحاب السؤال هذا waxaan joognaa ad account-kii ads manager meesha markuu fresh last time waxaan sameynay one campaign macnaha publish ma dhihin waa titirnay waa iska titiray sababtoo because campaignkaas wuxuu ahay conversionka marka waxaa fiican marka ad account-kaagu fresh noocaan uu yahay kale oo waxba weli xayisiin lagu sameynin oo macnaha waxaa fiican inaad xogo warm up aad ku samaysid oo macnaha xogo aad kululeysid ama xyar jimicsi aad samaysid amin kale ad account-kaaga macnaha toos waa laga xiraa Facebook ka xiraa street hada ku bilowdo conversion waxaa fiican inaad ku bilowdo waxyar adiga page likes iyo wax noocaas xogo adiga at least haddii xataa ugu yaraato $5 xataa ku baxdo oo macnaha laakiin hal maalin inay ku baxdo ma $5 3 maalin 4 maalin ku baxdo oo different ads create garay oo laakiin iska wada page likes ama wax noocaas macnaha oo adiga page likes ku dib male Facebook aad iyo aad muu fiiriyaan page likes laakiin markaad sameynaysid conversion oo kale ama purchases ku ka dhigo oo macnaha inaad wax gadaysid camal oo macnaha markaas waxa way ka adag tahay marka make sure inaad ku bilaabin conversion haddii aad ku soo gaabiyo oo ku bilowdid page likes marka hadda page likes aan sameynayna casharkan so marka waxaad ku dhufanaysaa meeshan create marka casharkan waa kulay waa si fiican ayaan u bogsiin doonaa macnaha meel istaagay laakiin meesha aan maraa markaas waa si sharaxa si aad macnaha ula socoto meesha hadda imaanay waa campaign levelka meesha campaignka aad ka dooranaysid danta aad leedahay objectivekaaga ujeedadaada so maanta objectivekan waa page likes xagee laga helaa meeshan laga helaa marka engagement ay imaanaysaa engagement marka imaatid meesha marka ku dhufatid hoos soo dago ka bacdi post engagement ma ku dhaafay mise waxa rabtaa page likes so page likes aan baahana ka bacdi continue okay so hadda marka u jeedaa campaign levelkan wali joognaa ma ka bixin so marka haddii aad rabtid inaad magac u baxsatid magaca jecesha u bixi kartaa waaye waxa aan sameynaya uu magac daraa macnaha so hadda jeeb run page likes waxaan sameynaya uu magac daraa si aad ogtay maadaama hadda macnaha campaign badan ana create garay doonin laakiin marka caadi aan shaqada ku jiro kale oo campaign badan ay ku jiraan business account oo kale si macnaha u kala xasuusto kale wax xasuus sameeyaa so marka hadda maadaama aan sameynayno page likes haddii aad ku laabatid oo kale oo waxay inay qaldan yihiin in kale inaad ogaatid rabtid oo kale oo ku laaban kartaa marka ku laabatid meesha markaas aad joogtid oo kale fiiri kartaa campaign details kaas oo kale aad fiirisid hoos soo socotid campaign objective oo kale meesha ku qoran tahay waarata marka waxaad dooratay meesha ka fahmi kartaa marka the page likes aan dalbanay ku laabo marka adsets levelkan tagaynaa hadda waxaan rabnaa marka inaan macnaha hadda xayisiintii iyo wixii hawsha inaan bilaawno pagekan wax ku xayisiin lahayn ama page like aan u rabno kale toos u soo qabtay because kaas bisa hadda wuxuu yahay meesha pageka so magaca inaan ula baxdo ayaa muhiima last time waa idin sheegay magaca waxaan u baxayaa waxaan sameynayo meeshaan target gareynayo iyo interest wax ii ah so marka waxaan dhan dhameeyo kadib aan magac bixiyaa haddana magac ula bixi kartaa haddii rabtid adiga so meeshan waxaan ka dhigaynaa $1 because haddii $25 iyo wax noocaas £25 hadaa ku bilaabno kale toos Facebook waa fahmaa wuxuu leeyahay may limitkaaga macnaha ma gaarin meeshaas inaa waxaas oo kale aad samaysid marka waa in macnaha aad limitkaaga aad xogo adiga warm up waa macnaha account-ku cusub yahay waxa fiican marka inuu wax adiga oo ruugi karo oo macnaha calanjin karo inaad afku gelisid otherwise xogo dhibaata kaga imaaysa dude okay so marka saani sheegay meesha macnaha pagekii ad budgetkan joognaa oo macnaha lacagtii iyo schedule-kii so $1 saani sheegaba marka waqtiga inoo bilaabanayso waxa waaye tomorrow saacadda waxa adiga jeceshaa ka dhigi kartaa aniga waxaan ka dhigtaa 3 o'clock oo subaxdii so midnight ka dhigi kartaa oo 000 ka dhigi kartaa wax dhan maxaa ku soo haray haddii marka hadda audience aan joogno last time audience aan sameynay oo waxay ahayd audience kan sameynayay waxay ahaayeen
61 audience كان سمعني لكن ولي audience من نقون because page كقفتك تمو بجرتبه location waxaan ka dhigaynaa Soomaaliya so marka waxaan rabaa maanta inaan laba xayisiin oo kala nooc sameeyo insha Allah taala marka tan dhameeyaan ta kala sameynaa labada xayisiin oo kala nooc aan danaan ka leeyahay danta aan ka leeyahay waxaan ku ogaan doonaa markii ay dhamaato oo macnaha xayisiinta ay macnaha ay noo dhamaato oo maalinta ku xigto kale 24 hours oo kala socoto adiga waxaan u baahanahay inaan aragno bis resultka marka resultkaas wixii qaali noqdana inaan la socono wixii raqiis noqdana aan la socono wixii qaali noqdana maxaa qaali ka dhigay wixii raqiis noqdana maxaa raqiis ka dhigay so hadda marka waxaan dooranaynaa Soomaaliya maadaama Soomaaliya hadda Soomaaliya dooranaynaa kadibna waxaan umaleynaa inaan Djibouti-na doono inkastoo macnaha xogo ay Soomaaliya ku hadlaan ay naftigooda so Djibouti even though it's Djibouti local okay so maadaama marka Djibouti ku daray xogo reach ku noo batay 2 million camal u gaaray so meeshan waxaad dhigi kartaa dadka meeshan degan haddii rabtid noo ka dhaafi kartaa haddii runta kuu sheego markaa samaynayo page likes waxaan aniga macnaha page likes markaan samaynayo people live in this location waxsaas macno weyn ma keento laakiin soo ku dhaafi kartaa darabtid noo waa ku sii diri kartaa waxaa ka dhigi kartaa mid ka rabtaa dooran kartaa doesn't matter laakiin markaad samaynayso conversion oo kale u baahan tahay qof inuu magaciisa kuu soo diro iyo numberkiisa si aad u wacdid wax uga iibisid ama inuu website-kaaga wax ka gato aad rabtid oo macnaha conversion aad samaynaysid make sure inaa macnaha kan ka dhigatid hadda laakiin kanaa ka dhigi kartaa wax weyn oo macnaha ma samaynayso because aniga waxaan rabnaa qof inaan picture tusno pictureka markuu arkana uu like noo saaro hadduu Djibouti degan yahay iyo hadduu badda hoosteeda degan yahay aniga shaqadayna maaha aniga waxaan u baahnaa bis social proof oo macnaha page likes kaasaan u baahnaa so marka age ka imaatay haddii macnaha page like ani aan raadinayo qofka like ii saarayo hadduu oday duq yahay iyo hadduu islaan waayeel tahay iyo haddii cunug yariis yahay I don't care page like aan u baahnahay so marka from 13 to 65 kabacdi markay 2 maalin socoto ama 3 maalin socoto kadib waxaan arkaa dadka ugu badan oo page like siinayo age-kooda aan ka fiirinaa meesha markaan ogaado dadka ugu raqiisan oo page like siinayo age-kooda iyo gender-kooda kadib waxaa laga yaabaa inaan dib xayisiinta soo create gareeyo xayisiinta dib usoo create garinayo laakiin adset-kana aan duplicate leeyahay kadibna dadkii oo macnaha aan arkay inay raqiis taayeen age-kooda da'dooda iyo macnaha dadkaas aan dib u dooranaa markaas because waxaan haystaa markaas data aan macnaha markaas aan raaco laakiin hadda wax data oon dhihi karo okay this intaas loogu talo maskaxdayda kama shaqaysiin kari until aan macnaha helo daara oo aan dhihi karo yes taasaa macnaha saxa oo information saxa markaas aan helo so hadda genderka oo kale sidaan ku dhaafaa detail targeting kan oo kale waxaan ka dhigaa oo kale kan oo kale waxaan dooranaa love since dalaalka oo aadanta waa love doortay because picture-ka haddii aan macnaha ku sheegaba picture-ka aan macnaha aan rabo dadka inaan tusaa wuxuu yahay something to do with jacayl iyo waxa noocaasa si marka haddaa rabtid love-kaas aan target gareeyey so marka midna macnaha waxaan sameeyaa love oo kale haddii macnaha creative-kaygu uu yahay wax dayga oo jacayl iyo wax noocaas ku saabsan waxaa laga yaabaa detail targeting inaan love ka dhigo midna aan ka dhigo waxba aan gelinba meeshaan oon ka dhigo just broad oo waxba target gareynin toos aan u geliyo so qofkii arko marka labadooda aan isku compare gareeyaa tii oo markaas winner noqoto aan raacaa marka so midna waxaan ka dhiganaa love midna love kama dhigayno oo dib aad arki doontiin waxaa ku soo hartay meeshan kale oo macnaha narrow iyo waxaan oo macnaha ku sii narrow gareynaysid iyo reach hadda macnaha reachkeena 1.2 million haddaa rabtina sii yaraysid waaye meeshaas laakiin aniga waxba ma yarayhayno more people on baahanaaba language-ka dhib male iska dhaaf English iyo waxaad tid Somali Francis language-ka dhib male sideeda ku daa maxaa ku soo hartay meeshan placement-iga last time waxaan dhanay manual ka dhigo kadibna Facebook iyo waxaad doorataa feed iyo Instagram feed hadda macnaha maadaama aan picture haysano on page laga baahanahay wax kasta broad aan ka dhigaynaa waxba ma bedelayno wixii markaas aan aragno oo noo soo baxo markii 2 maalin xayisiinta socoto kale markaas waxaan ka gaaraynaa inaan go'aan saxa laakiin hadda wax kasta hawadan gelinaynaa
so marka waa isku dhamaatay oo adsetka waa ka baxay wax kale oo hadda meeshan xarama jiraan. So next, so marka hadda intaan next idin adsetkayga magaca aan baxsan karaa because maadaama aan ogahay inaan love and interest ii tahay Soomaaliya ii tahay place iyo Djibouti. So marka labadaas inay yihiin kadib waxaan ogahay inaan 13 aan dalbaday age-ka waxaan kaloo la socdaa oo xasuustaa inay ahaayeen nin iyo naagba. So xaysiinta marka dhowt markaan arko horaan ka fahmaa waxay tahay macnaha ma isku wareerinayo inaan ogaado oonan hal usii fiiriyo. So marka next okay, hadda waxaan joognaa ad levelkii meesha ugu dambeysay oo creativekii waxaas inaan ku samayna nagal rabay. Marka hadda waxaan samaynaynaa magaca u baxsanaynaa. So waxaan hayaa 2 picture aan diyaariyey saan malaynayo. So 2 picture aan diyaariyey iyo waxaan rabaa inaan isticmaalo 2 copy ama qoraal oo kala nooca ama hal qoraal inaan isticmaalo iyo 2 picture oo kala nooca saas inaan sameeyaa umaleynaa. So marka waxaan sameynaa hadda marka waxaan leeyahay add 1 add copy 1 because qoraalka aan qoraayo iyo image-ka ayaan waxaan rabaa inay macnaha isku noqdaan. So image 1 iyo add copy 1. So marka dhowt qoraalkayga haddii aan bedelo kale add copy 2 inaan dhalo qaabka anigu ugu magac daro waxaan you don't have to adig inay waxaan sameynaa samaysid laakiin si aan u sameeyo waa macnaha. So marka hadda meeshan media ima marka media maadaama ay noo saaran tahay wixii automatic ahaan meesha Facebook saarnayo kale iska soo qabsaday aniga waxaan samaysanaynaa marka mid aniga aan ugu talagalnay oo aniga aan soo diyaarsanay ayaan saaraynaa marka. So media marka waxaa samaynaysaa ku dhufo kadib waxaa leedahay add image hadda video ayahana video waxaa leedahay add video. So kabacdina upload si taabo haddii meeshan uu kugu jiro imagekaasna waa ku dhufsan kartaa. So hadda marka xagga nooguma jiro waxaan rabaa marka videoga waa kan waxaan soo diyaarsaday 2 xabo 2 xabo aan soo diyaarsaday kan waa jecel oo anaa waxaan Canva ku soo sameeyay imidkan. So marka waxaad samaynaysaa meeshan imageka size-kiisa inuu ahaado 1080 by 1080. So intaas adiga size-ka imageka inuu taas ahaado muhiim bas. So kan ku dhufo marka haduu soo galaa markuu soo galo kadibna next aan leeyahay kabacdina meesha kusii xarwaa markaas next done. Okay, so hadda marka meesha noo soo fuulaa xakaan soo fuulaa kadib waxaan rabaa marka inaan qoraalki qoro. So marka qoraalkiisa inii sheegaba waxaan sameynaynaa meeshii aan qoraalka waxa ku qoran jirnay waxaad yay text. So marka waxaan sameynaa kooda hore waxaan rabaa inaan horto qofka markuu picture-kan arko haddii hadalkan soo gaabiyo oo macnaha waxay ka dhigan wax oo boring oo waqti dheer iska qaadanayo iska socdo. Haddii qofka marka picture-kan arko maskaxdiisa waxa ku jirta qofka picture-kan arko waxoogo uu istaagaa uu si fiican u fiirinaa. Marka si fiican u fiiriyo waxaan rabaa marka inaan ka faa'iideysto dhaho hadaa ka heshay yaa isfaham camal macnaha ma dhahay page lagna si saas ma dhahay fara badan ma qoray meesha waxaan rabaa bis inaan ku qoro wax adiga oo macnaha maskaxda meeshan wax qofka maskaxdiisa marka meeshan waxaan arko la socon karo inaan meesha ugu qoro. So marka qaabkan u sameeyo waaye so marka waxaan u baahanahay obviously love aan u baahanahay waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay kala soo qaad waxaan leeyahay qaybi faylka like sorry kala geeska u sii geli hoosta fartan wuxuu soo weynaysnay
so qaybi jacaylka like saar. Ma ka waalin qofka aniga wax badan ma weydiin maskaxdiisa haddii aad ka heshay like saar oo kale way shaqaysaa kun maran broobey qaybi jacaylka kun maran broobey waxana waxa waaye qofkii wax saas u sii weyn ma sii weydiinaysa qofka macnaha xawar magaalnimo dareema isku markuu ku qabanaa because haddii aad ka heshay like saarna waa dhigi kartaa oo obviously macnaha markaas waxaa leedahay waxa aan meeshan soo saaray haddaad macnaha ka heshay ya saas aa ula hadlaysaa macnaha si kale maahan laakiin haddii hadda waxaan u arko macnaha wax kaleba meesha ku qorno waxaa ku qoran bis qaybi jacaylka like saar si macnaha qofkan uu sii qaybiyo doorba share isku taabana hadda anaga danteena waxaa noogu jirta Facebook waxa waaye qaabkii anaga noo judge garaynayna xitaa markii qof ay tusaan ay macnaha markaas ay go'aan gaarayaan ayaga waxay leeyihiin xayisiintan waa xayisiin qaali noqon doonto ama waa xayisiin raqiis noqon doonto because waxay fiirinayaan qofka markuu meeshan arko ma istaagay ma fiiriyey kadibna like ma saariyey kadibna comment iyo wax ma ka bixiyey share raqiisay noqonay marka wax raqiis ka dhigi kara waxaas because ayaga shaqadooda waxay tahay inay dad tusaan so marka hadday baxaan ay 20 qof soo tusaan oo 20 mid kamid ah una like saarin ayaga waxay tahay inuu baashan waqti in loo nimeeyo 30 qof oo soo tusaan hal qof like saarin so marka go'aan meesha iska gaarayaan haddii 200 qof tusaan 2 qof ay like ku saarto kale for example labadaas like because 200 qof ay tusaan ayaga shaqadooda way qabsadeen laakiin labada like oo la saaray ay waxay isku dayayaan ayagoo 200 qof ay like saarto kale inta ka qaadi lahayn labadaas like ka qaadanayaan Facebook inta si u shaqeyso intaas waa dil lagu soo gaabiyo Facebook oo macnaha qaabkii lacagtu u judge gareyso because impression wax ku judge gareeyaan hadda Google hadii ahaleedo kale because waa mawduuc kale Google waa different beast oo ma oday kale waaye odaygaas marka hadlayno laakiin Facebook macnaha waxay ku leeyihiin intaas oo qof aan tusnay intii qof macnaha waxa respond ka soo celiyay waa intaas so marka anaga maadaama hawshan aan qabsanay lacagtii aan qaadan lahayn mar walba waa qaadanayna anaga so marka anaga shaqadeena maxay tahay laba qof hadii aragto mid kamid at least waa inuu dhigi karo wow saddex hadii aragto mid kamid ah aan like heli karno bas inta soo baahnaa hadii 5 qof aragto oo like ay heshid raqiis waa marka raqiis waxa ka dhigaya saas raqiis ugu noqonay marka 0.001 ina ku aragto laga yaabo mar oo like waa arki doonaa insha Allah hadda Djibouti Soomaaliya dooranay waxaan arkaynaa marka dadka like noo saaro inta qof oo like saartay waxa soo dhan arkaynaa waa hadii aad ka noola approve garay insha Allah wixii update waa arki doontiin marka waxaan leeyahay publish saas ay wada google hadii marka account-ka aan ku dirin payment iyo because ma rabin inaan marka casharka sameynaayo aan ku soo daro hadii aan payment wax ku soo dirin oo ku weydiina waxa ku leeyahay account-kaaga lacagtii wixii ya because lacag loo baahan yahay amal markaas wuxuu ku meeshaas ku weydiina kadib waa inaad ku dartaa hadii aad rabtid oo kale inaad si loogu daro fiirisid oo kale gudaha ka geli kartaa businesska oo ku tusi karaa hadii uu kugu jiro kale oo hore ugu soo darto kale wuxuu ku leeyahay kaas maarata inaad ku bixisid aad leedahay hadii aanu ku jirin oo una ogeyn markaas kadib uu ku dar ku leeyahay marka hadda waxa waaye waa istaajina kadib waa ku daraa kabacdina waa noo sii bilaabaa insha Allah okay asxaabta waa ujeedin waa ku daray kadib waa success soo baxday okay so marka diidan aan taabto sana ku dhaafo marka xayisiintina hadda marka waxay ku jirtaa way macnaha publish dhahday oo hawadii gashay waxaan sugaynaa marka intii macnaha Facebook ay nagu soo laaban lahayn dhaayaan oo kale xayisiintaadii reject soo dhahnay waa approve garaynay ma ka helin ayaga macnaha u taala marka hadda kulli waa hadda ujeedin meeshan schedule soo baxday casharkan xogo casharada kale si dheer ka dheeriyay 20 daqiiqo oo ugu talagalay inuu socdo hadda meesha ugu dambeyso oo adset-ka ugu dambeeyo ayaan joognaa marka waa ujeednaa inay review ku jirto so casharka ku xigo insha Allah tacaala waxaan isku dayaynaa inaan haddana sameyno another ad si aan macnaha kadib aan u aragno qaabkay u shaqeyso iyo qaabkay isku raacdo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.